meesha ku xirana halkan waaye Mozambique la dhahaa saas waaye saas ula socda insha Allah hadii la yiraahdo alfanaan socdaal oo xabsi ku jira xaaladii ugu xumeydna xilligan dhex maquuranaya fanaanka loogu yeero nooleeyihii fanka alfanaan socdaal halkee ayuu xilligan ku xiran yahay waa maxay sababta dhabta ah ee loo xiray ma dhaba inuu doonayay inuu kasii tahriibo mid ka mid ah wadamada qaaradda Afrika dhaca wadankee ayuu doonayay inuu usii tahriibo ayaad xogtan kaga bogan doontaa daawade balse ka hor xogtan daawada waxaa ka codsanayaa inaad kanalkeena subscribe taabato like dhahdo aad usii share garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weliya baraha bulshada la socodka iyo daawashadaadu waxay nooga dhigan tahay dhiirigelin anagana waxaan diyaar u nahay inaan mar waliba kuu soo gudbino xog xaqiiqda ku salaysan iyo sidoo kaleeto wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca dalka iyo dibadda meesha ku xirana halkan waaye Mozambique la dhahaa saas waaye saas ula socda insha Allah hadii la yiraahdo fanaanka caanka ah ee alfanaan socdaal oo loogu yeero nooleeyihii fanka sidoo kaleetana ah madadaaliye si weyn uga soo muuqday baraha bulshada kuna soo caanbaxay jilista codadka heesaha iyo sidoo kaleeto in uu jilo codadka filimaanta hindiga haddaba alfanaan socdaal ayaa ahaa mid ka mid ah dadka ugu saameynta badan ee Soomaalida balse xilligan waxa uu fanaanku ku jira xaaladii ugu xumeyd waxaana uu ku xiran yahay mid ka mid ah wadamada qaaradda Afrika dhaca haddaba alfanaan socdaal ayaa waxa uu socdaal ku gaaray magaalada Nairobi ee xarunta ah wadanka Kenya haddaba alfanaanka ayaa halkaasi waxa uu muuqaalo kala duwan la soo duubay dhalinyaro si weyn uga caanbaxday baraha bulshada oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaasi ayaana cid ugu wardambeysay maalmo kadib ayaana la waayay halka jaaniyo cirib uu dhigay waxaana jirtay xan ahayd in alfanaan socdaal ay qadka taleefanka ku wada xiriireen daahir cali sow kana ballan qaaday inuu geynayo mid ka mid ah wadamada qaaradda Yurub dhaca uuna u xareynayo wax walba uu ku tagi lahaa wadankaasi haddaba alfanaan socdaal ayaa sidaan xogta ku helnay waxay sheegaysaa inuu maalmo ka hor ka ambabaxay magaalada Nairobi isagoo doonayay in uu tago wadanka South Africa ama Koonfur Afrika halkaasi uu doonayay inuu fanaanku kasii tahriibo oo uu galo qaaradda Amerika haddaba fanaanka ayaana waxa uu galay safar dhulka ah waxaana uu tagay wadamo badan oo ay ka mid tahay Tanzania ugu dambeynna Mozambique ayaa lagu xiray fanaanka muuqaal waxa uu soo duubay runtii si weyn ay uga falceliyeen dadka Soomaaliyeed lagana dheehan karay isbedel jir ahaaneed oo fanaanka ku dhacay muuqaalkan ayaa markaa dadka qaar waxay ku fasireen in fanaanka laga dareemayo xaalad halis ah inuu xilligaasi ku jiro muuqaalkan uu yahay miduu si qarsoodiya u soo duubay waxa uu sheegay goobta uu joogo iyo sidoo kale xaaladda halista ah ee uu xilligaasi ku jiray bilihii ugu dambeeyay waxa jira dhalin badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo ka tahriibaya wadamada dhaca koonfurta qaaradda Afrika haba ugu badnaatay wadanka Koonfur Afrika ama South Africa halkaasi oo tahriib ah badda ah laga sii galaya kadibna lagu aadaya wadamo dhaca qaaradda Amerika haddaba alfanaan socdaal ayaa sida ay sheegayaan xogaha qaar waxa uu doonayay in uu aado mid ka mid ah wadamada dhaca qaaradda Amerika kaasi uu doonayay in uu galo safar ku aadan ama tahriib ku aadan wadankaasi alfanaan socdaal oo si weyn ugu caanbaxay isticmaalka aaladda TikTok waliba si weyn u challenge garay jiray heesaha kala duwan iyo sidoo kaleeto muuqaalada maada ah dadkana ay si weyn u xiiseynayeen kaftankiisa iyo sidoo kaleeto sida uu u jelayo codadka iyo muuqaalada ayaa mar qura laga waayay aaladda TikTok oo si weyn ay ugu xiran yihiin dad dhaafaya ilaa iyo 200,000 oo si weyn u xiiseeya fanaanka ayay dad badani ku dhaliilaan qaabka uu heesaha ugu luuqeeyo balse isaga ayaa sheegay inaysan waxba ka bedeli karin uu yahay fanaanka ugu codka macaan fankana uu doonayo in uu isaga wax ka bedelo
qaabka fanka uu yahay uu ahaynba qaabkii loo baahnaa, balse isaga uu yahay mid xilligan fanka soo nooleyn kara. waa siduu isaga aaminsan yahay, dad badan oo taageerayaashiisana ay ku dhiirigeliyaan. haddaba alfanaan socdaal ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii muuqaalkiisa sida weyn uga falceliyey. ayuub carlo oo ka mid ah dhalinta sida weyn u isticmaasho aaladda tiktoka, weliba ka mid ah dadka sida weyn isaga ugu dhow markay noqoto ciyaarista kulamada loo yaqaano live-ka tiktok ee lacagaha laga sameeyo, si weyna ay u wada kaftamaan, ayaa xalay soo duubay muuqaal uu leeyahay fanaanka ha loogu duceeyo, xilligan waxa uu ku jiraa xaalad halis ah. waxaana uu sheegay in uu ku xiraya mid ka mid a xabsiyada ee ku yaala wadanka Mozambique. haddaba muuqaalkiisa ayaa noqday mid saameyn xoogan leh oo si weyn loogu hadalhayay baraha bulshada sida weyn Soomaalidu u isticmaasho, gaar ahaan aaladaha kale ah YouTube-ka iyo sidoo kale TikTok-ga. si la mid ah Facebook ayaa si weyn loogu qaadaa dhigaya alfanaan socdaal oo xaaladda xilligan uu ku jiro aan cidi ogeyn, balse la sheegay xilligan inuu xabsiga ku xiran yahay, xabsi ka mid ah xabsiyada ugu halista badan ee ku yaala wadanka Mozambique, kaasi oo lagu xiro dadka sida sharci darrada ku soo gala wadanka Mozambique. wixii xoga ee ku soo kordha waan kula soo socodsiin doonaa. daawada muuqaalada xiga ayaad kaga bogan doontaa, si aan mar waliba kuugu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kaleeto xaaladaha ka jira dalka. waxaan daawada ka codsanayaa inaad subscribe taabato, like dhahdo, aad u sii share garayso muuqaalkan saaxiibadaada kala duwan ee kugu weliya baraha bulshada. aad baad u mahadsan tahay daawashadaada iyo la socodkaadu, waxay nooga dhigan tahay dhiirigelin aad u weyn. aad baan ugu mahadsan tahay mar waliba daawade. si aad u hesho xogtii ugu dambeysay, haddii aad ku cusub tahay kanalka, fadlan subscribe taabo oo like dheh, siina share garay. wixii fikirkaaga ana qaybta commentiga noogu qor.